barnaamijka TikTok kuna soo shubata moobilkaaga markii ugu horeysay aad ku dhufanayso waxaa ka hor imaanaya digniino badan oo aad u badan. runtii digniinahaas tirada badan anaga ma aragno sababtoo ah badankeena Soomaaliyeed waxa u baahan dad aan akhrin. digniinahaas markaad akhriso waxaad heli doontaa runtii waxyaabihii tirada badnaa aan ku soo sheegay. marka barnaamijka TikTok aad soo geliso moobilkaaga kadibna aad dhahaysa allow muddo 3 ka badan. allowga koobaad wuxuu ku sheegayaa in marka hore aad u ogolaaday barnaamijka TikTok inuu la falgalo moobilkaaga, sidoo kalena uu ogaado xogta guud ee ku jirta moobilkaaga. marka labaad ee allow aad dhahdo adeegga TikTok ama barnaamijka TikTok waxa uu ogolaatay in wax uu rabo uu ka qabsan karo moobilkaaga. fiidiyoyaasha ku jira ayuu la bixi karaa, wejigaaga ama waxa aad doonto ayuu la bixi karaa. xitaa mararka qaar waxay awood u leedahay shirkadda TikTok haddii aad moobilkaaga kula jirto goobaha sida musqusha oo kale ama adoo qaawan aad isticmaalayso in si toos ah uu fiidiyoo kaaga duubto kadibna fiidiyoodaas uu isticmaalo waxyaabo kala duwan. sababtoo ah waxaa jiro shirkado runtii shirkadahaasi waxaa laga soo qaataa wejiyada dadka si loogu isticmaalo waxyaabo kale. wejiyada badan ee la soo qaatana waxaa ka mid ah ama ugu badan dadka Afrikaanta ah oo aan ugu horeyno anaga oo Soomaali ah. runtii waa wax laga xumaado in adiga aad cadowgaaga keensato kadibna aad suuq galaato oo wax walba kaa qabsato. waddanka Hindiya oo iska xayiray sababta ugu xayiro ugu weyn waxay ka mid ah in xogta waddankaas oo dhan ay heli karaan shirkadda TikTok si fudud, iyadoo xitaa ay ku heli karaan qof kasta. sidoo kale TikTok waxay awood u leedahay in adiga daawanayo fiidiyoogan haddii aad isticmaasho in wax walba oo moobilkaaga ku jira inay la socoto, sidoo kale in la socoto halka aad joogto iyo wax aad qabanayso. xitaa mararka qaar waxay awood u leedahay moobilkaaga oo meel iska yaala inay fiidiyoo qarsooni ah kaa duubato adigoo qaawan ama adigoo asturan. waxaanu runtii gabdho badan oo Soomaaliyeed in wejiyadooda wax badan loo adeegsado. haddaba waan filayaa in adiga daawanayo fiidiyoo wax badan aad ka fahantay adeegga TikTok. wadamo badan ayaa iska xiray. hadda shirkaddu waxa ay wataa dadaalo badan oo runtii ay ku dirtirayso waxyaabihii lagu soo eedeeyay, laakiin waa been marnaba isma beddelayaan oo sirta sidii ayay ahaan doontaa. wadamo badan ayaa iska xayiray adeegga TikTok. haddaba adiga oo Soomaali ah maxaa kuu diiday inaad ogaato sirta ku aasan adeegga TikTok? haddii aad isticmaasho barnaamijka TikTok runtii waxaan ku leeyahay iska dhaaf. wixii aan kuu soo sheegay in ka badan ayaa u qarsan. awoodo badan ayaa u qarsan adeegga TikTok.